in dadna maalqabeenimadooda ay u socoto sida rokitka umamka dunida qaybina ay u socoto baahida iyo gaajaduna iyana xagga kale rokit ahaan ugu socoto waayo su-aal abaan weli laga jawaabin qofku muxuu xoolaa ku falaa qofka biniaadamkii muxuu xoolaa ku falaa yani xooluhu waa inay noqdaan means aad baahiyahaaga ku fushan karto gartay intaa markaad hesho iyo in leeg iyo in kaloo leeg markaad hesho inta kale maxaad ku falaysaa haddaan idhaahdo waxaad noolaan kartaa ka soo qaad 60 sano imsaa kugu bixi kartaa 70 sannadood ood noolaan kartaa 70 sano maxaa kugu bixi karaa daynu qiimayno nidhaahno 5 milyan ka soo qaad 5 milyan pound baad u baahan tahay 70 sano inaad noolaato wixii kharash kugu bixi lahaa biniaadamku ma ku qanacayaa shan u qaato inta kale iska daaya waa maya muxuu ku falayaaba su-aasha isweydiinta leh waa maxay niidiska loo qabaa ma intaan ururiyo inaan dhinto baahida aan u qabaa maxay tahay maal waxay yidhaahdaan shahwaadkan oo dhan isku soo dar waa wasaa'ilulxayaa laakiin hadday maqaasid isu bedelaan waa wixii lagu kaalmaysanaya nolosha laakiin hadday iyagu noqdaan wixii loo noolaa hadday مثلا شهوة البطن inaad wax cunto haddaad u noolaato inaad wax cunto dawaydan ka arkay maanta dunidu badhna gaajay ka baqaysaa inay u dhimato badhna obesity ba u dhinteen inna baruurtii baa ka badato waa la eryayaa iyo waa la haraadinayaa iyo waa la wadaa inna baktay u dhimatay idan wax kasta oo xadkiisa la dhaafiyo desireskan bini aadam ka mid ah kama maarantid oo lama goyn karo oo dee noloshaad ka baxaysaa cuno kama maarantid haween kama maarantid caruur kama maarantid waxaan qur-aanku sheegaya kama maarantid laakiin hadday iyagu maqsad kuu noqdaan waxaad u nooshay hadday iyagu noqdaan waa markaasi markay dhibtu taagnaanayso saa daraaddeed saxaabadii qaar ka midaba xamaasadooday deetana waxay idhaahdeen sow shahwaadkan maaha waxayna dawakhiye gurigii nebigay tageen calayhi salaatu wasalaam gurigiisi bay soo eegageen waa loo sheegay nebigu siduu u cibaadaysan jiray waa ka dabeetana si kale isu qanciyeen waxay idhahdeen war nebiga isaga ilaahay baa dembigiisii horiyo kiisii dambaba dhaafay innagu waxaynu u baahannahay tiro badan le inaynu samayno haddaba si ay taasi u dhacdo desireska weynaynu joojinnaa mid baa wuxuu yidhi markaa anigu horta dumar iyo guurkoodba waa ka tegayaa naagba arki maayo mid kale isna wuxuu yidhi aniguna waxaan ka tegayaa cunno iyo habeen maalin oo dhanna waan soomanaan habeenna waan taagnaan waxyaabo noocaasi ah ayay sheegteen dabeetana nebigaa warkii maqlay wuu u yeedhay wuxuu ku yidhi waryaadheen may caynkaasaa tidhaahdeen haa bay idhaahdeen antum aladiina qultum kada wakada nimankii sidaa yidhi baateen haa nebigu wuxuu ihi wallaahi innii la akhshaakum lilaahi wa atqaakum lah anaa ilaahay idinkuna cabsi badan idinkuna taqwo badan riwaayadka qaarkoodna idinkuna aqoon badan waayo aqoontay waxaana ka dhalashaa inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa anaa ilaahay idinku aqaana laakiin anigu waan soomaa oo waan afraa buu nebigu yidhi oo waan tukadaa oo waan seexdaa oo dumarka waan guursadaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii sunnadayda ninkii ka wacda anigaygama mid aha muxuu tilmaamayaa qoladan tidhi gamtaannu u joogsanaynaa kuwaas waddadoodu ma saxna laakiin waddadu waa meel dhexay diintu inoo tilmaamaysaa walaa taqrabu alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan walaa taqrabu azina innahu kaana faaxishatan wasaaa sabiila qofku meel dhexe inuu yimaado ah nafta inuu kontrooli karo naftiisa inuu kontrooli karo oo shahwa biduuni qaydna ma socoto hadday tahay taa rag iyo dumarka u dhaxaysa falaa takhdacna bilqowl fayatmaca aladii fii qalbihi marad buu ilaahay ku tilmaamay kii qalbiga uu bukaan kaga jiro waa bukaan bay xad gaadhaysaa idan waxaynu nidhi waxa kan ilaahay baa inagu abuuray waa mid waa baahi aynu qabno waa laba
sidee baynu u maamuli karnaabaa markaa isweydiinta leh ama u cilaajin karnaa. aayadda inta ugu dambaysa ilaahay wuxuu ku tilmaamay dhalika mataacu alxayaati addunya. markii 6 shayba ama 5 shayba lasoo tilmaamay waxaa la yidhi dhalika mataacu alxayaati addunya. kaasi waa bidhbidhka nololeed, waa in yaroo lagu tamatuco nolosha adduun. macnaa ku jira muxuu yihi? halkan umaydan iman inaa weligiin joogtaan ee waxa u timaadeen ashyaada tani waa waxyaaba laydinku itixaamayo lilibtilaa, waa laydinku itixaamaya. laakiin halkani maaha meeshii aad joogayseen ee wallahu cindahu xusnu lma'aab. ilaahay subxaanah wa tacaala baa noqosho fiicani xaggiisa jirta. kow, qofku marka koobaad dishirskan waxaynu u xadayn karnaa inaynu aakhiro fahamno, inaynu garanno halkan muddo yar inaad joogayso. sida awgeed haddaad dhowr bilyan oo lacaga ururiso waad isdhibtay una you will die, waad ka tegaysaa. adunbaa ismashquuliyeye waad ka tegaysaa. sida awgeed waa inaad ku tala gashaa waxaan maxaa aakhiro kaa raacaya, maxaad nolosha kaga qaban karaysaa, maxaad bedeli karaysaa. ururintu maaha maqsad inaad ururiso agtaada taallo. yani qof baad arkaysaa subaxii ka lahay oo ilaa habeenkii shaqaynayey oo habeen iyo subaxba saa u wada oo inta xoolaa le ah oo inuu ururiyo unu nool. waxaan u garanin hantidu maxay qiimo leedahay markaa, yani muxuu ku falayaa qofku. walidaalika baa ilaahay aayadda ku xigta wuxuu leeyahay qul aunabbi'ukum bikhayrin min dhalikum liladiina taqaw cinda rabbihim. war ma idin sheegaa baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala wax tan idinka khayr badan kuwa ilaahay ka cabsada. waa haddaad jannaad iyo beere iyo aswaaj mutahara iyo waxaan haddaad rabto meesha aan laga dhimanayn bay jirtaa baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. janno ayay aakhiro jirtaa. idanka koowaad ee waxaan lagu xadayn karaa waa inaynu qiimatu alxayaa garanaa. xayaatu dunya